ujeedadu halkan isugu waxa weeye kulan hawleed qaadan doona muddo 2 cisho ah nuxurkiisuna uu ka yimid wasaaradda waxbarashada qaybta waxbarashada dadban iyo AAT waxay wada fulinayeen mashruuc ah waxbarashada dadban ee dadka ku nool meelaha ka baxsan magaalooyinka ay ka mid yihiin tuulooyinka iyo meelaha aan adu magaalooyinka aan gaarsiinayn nuxurkuna wuxuu ahaa in la baro livelihood-kooda iyo waxbarashada dabiiciga markii aan u dhameynay waxbarashadii caadiga ahayd ee literacy-ga numeracy-ga heer bay gaareen ay talada ka qayb galaan oo wax la weydiiyo oo markaa maxaa u baahan tihiin sadku sufilnaansho gaadhaan marka waxay wali khasab noqoteen institutionadii ku shaqada lahaa wixii ka baxsan waxbarashada ha ahaadeen kuwii arrimaha horumarinta dhaqaalaha oo ay ka mid tahay wasaaradda arrimaha bulshada ay ka mid tahay ururada maxalliga oo kala jooyada ka shaqeeya horumarinta bulshada iyo wasaaradda waxbarashada ay isku xidhmaan oo aragti isku mid laga yeesho oo martii qofka ila umadiiba horumarkooda laga shaqeynayaa sideeba aynu u suurta gelin karnaa in qofka reer miyiga jooga uu helo information uu baahnaa runtii taas bay ka timid maanta kulan hawleedkeenani aynu isugu nimid oo nuxurkiisu yahay in balay wasaaradda waxbarashada especially qaybta waxbarashada dadban iyo hay'adaha kale ee ka shaqeeya horumarka bulshada ha ahaadeen wasaaradda beeraha ha ahaadeen wasaaradda arrimaha bulshada ha ahaadeen local NGO-yadu ay yeeshaan bal at least nidaam guud oo lagu wada shaqeeyo wasaaradda beeraha u baahateen wax la baro dadka wax loo baro wasaaradda waxbarashada waxay haysaa wax walba waa diyaar macallinkii baa diyaar ah buugii baa diyaar wax laga baran lahaa nidaamka wax loo dhigi lahaa baa diyaar similar haddii wasaaradda waxbarashada livelihood la baro livelihood-kii dad baa ku takhasusay iyaguna oo wixiina qaban karaya marka iskaashi noocaas inuu ka soo baxo ayuu kulankeena daaran yahay documents aad u fara badan oo ay ka mid yihiin constitution-keena ama dastuurka dalka ee qaranka Soomaaliland oo ka tarjumaya waxbarashada dalka waxa looga baahan yahay way badan yihiin documents-ka yaala wadanka ku waajahan waxbarashada intuba waxa runtii baaqyada caalamiga ah ay ku salaysan yihiin waxay ku salaysan yihiin rights-ka ama xuquuqda qof waliba u leeyahay caalamka inuu waxna qori karo waxna akhriyi karo hawshan maanta aynu u fadhinaana taasay qayb ka tahay runtii bulshadeena reer baadiyaha ah heer tuulo sidii aynu u gaarsiin lahayn waxbarasho ayay qayb ka tahay waxa kaloo qayb ka tahay adeegyada bulshada waxaa ka mid ah waxbarashada caafimaadka biyaha iyo wixii la mid ah waa markii u horeysay package caynkaas oo wasaaraduhu ay wadaagaan barnaamijkani ka howlgalay ayuu kow ka yahay waana soo dhaweynaynaa runtii wasaarad ahaan barnaamijyada noocaasa sidii wasaaradaha dalku isaga kaashan lahaayeen aad bay muhiim u tahay waxay faa'iido u leedahay runtii bulshada kala duwan ee ku nool dalka ee ku kala nool xaaladaha kala duwan kulankeena horta waa kulan xoog isweydaarsiya oo marka aynu kala kororseena marka qaabkii la isku kaashan lahaa la iska kaashan lahaa sidii waxbarashada gaar ahaan kor loogu qaadi lahaa awooddeena akhriska iyo qoraalka ee dadka magaranaysa adhaltiga iyo dadka reer guuraagaba saad la socotaan dunidoo dhan horta waxaa lagu tartamaya lagu kala horeeya waa aqoon weyn wadaboodu ka aqoon badan yahay ayuu ka wax soo saar badan yahay ayuu ka dhaqaale badan yahay ayuu ka sumcad iyo magac badan yahay waxaa laga yaabaa wadamo badan oo adduunka hub iyo ciidan fara badan haysta waxaa ka sharaf badan oo ka dhaqaalo badan oo ka horumarsan markaa wadamo yaryar laakiin dadkooda xoolo barteen halkan markaa inagu higseenna horta waa halkaa weyn Soomaaliya halka higsanaysaa waxa weyn bulshadeedu dhammaan 100% ay xoolo akhriyaan inaga dadkeena marka la qiyaasayo 30% meelahaas wax akhriya markaa dadka waaweyn
aad bay runtii u hooseysaa waxaan u baahanay markaa in arrintaa laga howlgalo sidii kor loogu qaadi lahaa dadaalkaasay markaa wasaaraddu waddaa barnaamijkan maanta markaa AET naga caawinaysaana waxa weeyaan sidii actorska kala duwan ama dad kala duwan ee ka shaqeeya waxbarashada dadban ay gacmaha isku qabsan lahaayeen ee siyaasad midaysan oo siyaasadda wasaaradda markaa ugu wada hoggaansami lahaayeen waxbarashaduna waxay ka bilaabataa markaas wax loo akhriyo marka akhriskii qoraalkii waa qofka la barayaa marka hore marka dambe xisaabtii iyo si wax lasoo geenaya baa la barayaa kadib baa marka xirfadihii iyo wixii kale qofka la doonaya la baro waayo qofka isagoo waxbana akhriyi karin waxbana qori karin haddii xirfadda la baro xataa waa ku adkaanaysaa inuu ku shaqaysto marka xirfaddii u bartay marka hawshaasaynu culayska saaraynaa hay-adaha kale markaa ka shaqeeya haddii wasaaradaha dowladaha tahay ayaa haddii hay-adaha kale maxalliga iyo kuwa caalamiga tahayba waxaan doonaynaa markaa kulamada noocan oo kalea marka la yimaado in idinkuna soo bandhigtaan waxyaalaha qabateen marka insha allahu tacaala anagu xaggayga wasaarad ahaan oan dee qorshihiina wuu jiraa oo qorshaa jira wixii taageero xaggayga looga baahdana waanu taageeraynaa laakiin waxaan u baahan nahay in dadka wax la baro marka dadkeenii magaalada joogay ayaana qaarkood waxba akhriyin dadkii markaa miyiga maxaad u malaynaysaa waa mushkiladiina haysata weeyaan aynu u baahanay markaan ka gaashaamano waxaa wada ogtihiin in waxbarashadu ay tahay furaha nolosha haddii qofku aanu waxna qori karayn waxna akhriyi karayn oo magaalada joogo gaar ahaan dadka magaalada jooga way dareemaan markiiba waxbarasho la'aantu in ay tahay dhibaato iyo wax noloshooda ka maqan in ay tahay way dareemaan marka qofka la yidhaahdo warqadan saxiix oo suulka saar dadku way naxaan markaasay gartaan waxbarashadu faa'iidaday leedahay iyo meelo kaloo fara badanba waxaynu isugu nimid markaasi in ay tahay inta faraha ku haysaan waxaa ugu yar inanta aqalka kula joogta ama ku shaqaysa ama ehelka kale guriga joogaba in aad waxbarto oo waajib iska saarto aad iskuulka u dirto iskuulka intaan tagina ka hor aad aqalka dhexdiisa far Soomaalida marka ugu horeysa lagu baro marka dambena iskuulka loo diro xisaabta la baro intaas ugu yar qofku halku ka gali karo iridu ka gali karo waxbarashada waa halkaasi waxay tamar gubaabadu ay tahay in waxbarashada aynu ku kordhino oo culays badan saaro waliba dadka waaweyn sida ay wax baran lahaayeen meel walba wax loogu bari lahaa dhaqaalaha adduunyadu had iyo goor wuxuu ku xidhan yahay waxbarashada hadduu qofku wax yaqaano wuu samayn karaa wuu abuuri karaa dhaqaale isagoo u gaar ah oo uu wax ku soo saaro wuu abuuri karaa laakiin haddii aanu waxba garanayn oonu aqoon lahayn intelligent kasta ha ahaado maskaxdiisu si kastaba ha weynaato kulliyo waxba ka dhiman waxaan leenahay markaasi aynu culays saaro waxbarashada